Soomaaliya oo dhabaha nabadda iyo horumarka qaaday ayaa leh dhul ballaaran oo si dabiici ah ugu diyaarsan dalxiiska. Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa diyaarisay qorshaha horumarinta dalxiiska dalka oo mudnaan gaar ah siinaya sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd deegaankeeda dalxiiska u samaysan. annaka dawlad ahaan Soomaaliya annaka og muhiimadda dalxiisku leeyahay. wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska waxay ku mashquulsan tahay sidii ay u horumarin lahayd dalxiiska Soomaaliya, sidii loo ilaalin lahaa goobaha taariikhiga ee Soomaaliya ku yaal ama ay leedahay, dhismayaal ha noqdeen, meelo kale oo dabiici ah ha noqdeen, iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ee hadda ka soo kabanaysa burburkii gaadhay dhinaca dalxiiskana loogu diyaarin lahaa inay sameeyaan goobo dalxiis quruxdoodana iyo dabeecadeennana oo gadmaysa oo dalxiiska soo jiidan kartana loo horumarin lahaa. Waxaa sii kordhaya dalxiisayaasha Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ee dalka ku soo qulqulaya. Taasi waxay daliil cad u tahay ahamiyadda Soomaaliya ee dhinaca dalxiiska. Garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaanu ka helnay macluumaad sheegaya inay sii kordhayaan dadka dalka u soo galaya arrimaha dalxiiska. Waa il dhaqaale oo ka faa'iideysi weyn u baahan. Cali Axmed Faarax, gudoomiyaha midowga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed oo magacooda loo soo gaabiyo SETA, ayaa sheegay in isbeddelka amni ee dalka ka dhacay uu sabab u ahaa in Muqdisho ay u soo hanqal taagaan diyaaradaha caalamiga ah ee sida dalxiisayaal ajaanib iyo Soomaaliba leh. waxaa ku dhiirigelinayaa sida Muqdisho wax ka baxsan uma jiraan. garoon caalami ay leedahay ama dalku uu leeyahay, nabadgelyadii loogu talagalana way jirtaa. dadaal ay dowladdu samaysay annaguna aan ku garab siinay ayaa wuxuu keenaa in kalsoonidii ay soo noqotay diyaaradaha kaliya maahan, weliba dalxiisayaal dalkeena yimaada haddana aan rabno inaan kusii dhiirigelino. marka taas waxay kutusaysaa kuwaan kaliya maahan, kuwo kaloo badan ayaa waxay rabaa inay yimaadaan. waxaa la rabaa wadanka mar haddii dalku uu dal furfuran oo ganacsigiisu furfuran yahay, waxaa laga yaabaa garoomada nagu dhow oo kale inay yimaadaan maalinkii 100 diyaaradood. marka garoonka naguna wuxuu lamid yahay garoonka ku yaala Addis Ababa iyo Nairobi iyo oo tartan kula jira. marka dhiirigelin waxay nagu tahay inaan badino aadida dalkaaga. adiga passenger lama waayo, rakaab lama waayo, waxaa la waayaa horumarka iyo baahida loo qabo dalkaas la waaya maahane. mar walba faa'iida lagu qabaa. dhammaan diyaaradihii yimid dalka waa ka warqabnaa, way ka faa'iideen. diyaarad aan ku kaaminayn inay falaayadiisa qaaraa laba falaay, Ethiopia Airline laba falaay waa galab iyo subax ay timaadaa, habeenkii duusha 1 saac habeenimo. waxay ku tusaysaa horumarka aan sii sameynayno iyo dhiirigelinta dalkeena aan hayno. Axmed Nuur Taagane oo ka shaqeeya shirkadda bixisa adeegyada tikidhada diyaaradaha ayaa ii sheegay in sanadihii dambe ay aad u sii badanayeen dadka doonaya inay Soomaaliya xog ka helaan una baahan macluumaad dhinaca dalxiiska ah. anigu dad badan jiro oo soo codsada macnaha inay Soomaaliya wax badan ka ogaadaan, ayagoo ku soo weydiinay email ku soo dhacaya oo ku dhahaya waxa rabnaa inaan noo sameeyo booking oo bil hebel ah, anagoo adinkoo macnaha wixii dalxiis ah iyo wixii oo diyaaradaha localka wax badan ka weydiinayaan kambaniyada. hadda markii hore ama Soomaaliya danin jirin ba hadda waxa arkaysa inay ku soo dhiiranayaan inay email ku soo diraan oo ku weydiiyaan waxyaabo badan Soomaaliya kamid ah ay ka wareystaan dalxiiska Soomaaliya sidoo yahay, meelaha loo dalxiis tago in warbixin ka siiso oo sida meelaha gudaha Soomaaliya badan macnaha in warbixin ka siiso ayagoo raba ay wax badan ku soo codsanayaan. markii loo sheego markii arkaan diyaarado badan oo Soomaaliya aadayo wax badan ku soo dhiiranayaan. mid kale ayaan wasaaradda oo dalxiiskana aydan waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq badan sameysay oo ah si dadka u wacyigelin lahayd oo wax u sheegi lahayd oo macnaha barnaamijyo badan oo ku saabsan dalxiiska Soomaaliya aad wax ugu qabteen, ayagoo marba kula wadaagaya meelaha muhiimka la aadi karo oo ku soo sheegaya. Peter Nakuto oo agaasimo ka ah hotelka Jazeera ayaa ii sheegay inay aad u sii kordhayaan tirada dalxiisayaasha yimaada dalka Soomaaliya. Yes, labadii sano ugu dambeysay waxaanu eegaynaa isha aanu ku hayno xaaladda dalka Soomaaliya. 3 sano haddaba ugu dambeysay iyo waxaa sare u kacay amniga waddanka oo aad iyo aad u soo hagaagay iyo dalxiiska sidoo kale. waxaanu haynaa dalxiisayaal laakiinse ma badna tiradooda, laakiin waxaan rajaynayaa in nambarka uu sii kaco. qaar kalena waxay haystaan ganacsi, qaarna waxay ku tiirsan yihiin ururada aan dowliga ahayn. NGO related activities. intii aan ku sugnaa gudaha hotelkaasi waxaan kula kulmay Salmaan oo u dhashay dalka Turkiga,
waxa uu sheegay in Muqdisho uu yimid 2 sano ka hor balse uu dib ugu laabtay laakiin xilliga uu aad uga helay waxyaabihii uu dalka ku arkay sida cunnada Soomaalida hawada iyo waliba bulshada Soomaalida sidii u soo dhaweeyaan. Dünyada aslında çok fazla Türkiye'den dışarıya çıkmışlığım yok ama cimilada iyo jawiga Soomaaliya runtii waa dal aad iyo aad u cimilo iyo jawi fiican waxaana ku tusaalaha markaad eegto wadamo fara badan oo aan tagay runtii waxa ka jira qabow aad u daran oo ku dhibaateynaya ama waxa ka jira kuleyl daran oo isna dhibaatadiisa leh laakiin Soomaaliya waxay leedahay jawi iyo markaas cimilo runtii aad iyo aad u qurux badan oo aan waxna ku dhimaynin dhanka kale markaad eegto waxa jirta qudaar fresh ah iyo hilib fresh ah iyo cunto fresh ah markaas oo aan martay raagitaan iyo daahitaan gelin ayaad helaysaa runtii adduunka laga wada helo. Ama buradaki havayı başka yerde görmedim açıkçası. Yani devamlı buradan bir rüzgar esiyor ve hoş bir rüzgar yani insanların sevdiği tabirle Meltem rüzgarı gibi böyle denizden devamlı gelen hoş, serin, insanı rahatsız etmeyen. Yani şurada oturup marka la eego gobolada dalka ayaa waxaa jira deegaano badan oo ku habboon dalxiiska isla markaana hadda ay tagaan dad dalxiisayaal oo Soomaali ajaanib leh waxaa kamid ah gobolada waqooyi ee dalkeena deegaano ka tirsan gobolada Bari Nugaal iyo Sool iyo sidoo kale gobolada dhexe deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose degmada Warshiiq iyo deegaanka Cadale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo waliba magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waa deegaano ku habboon in maalgashi dalxiis lagu sameeyo. halkan waa xeebta Liido waxa u soo damaasha taga kuna dalxiisaga kumanaan dhalinyaro Soomaaliya oo ka kala yimaada xaafadaha magaalada Muqdisho waxa dheer qaar kale oo ka kala yimaada gobolada dalka iyo kuwa kale oo ka yimaada qurbaha intiisa kale ay Soomaalidu ku nooshahay. maalmaha Jimcaha iyo Khamiista waxa ka jira saxmad aad u fara badan waxaana buux dhaafiya dhalinyaro iyo caruur kuwaas oo si macaan ugu wada qaadanaya waqtiyo qurux badan xeebta Liido oo kamid ah xeebaha ku yaala magaalada Muqdisho ay ku habboon dhinaca dalxiiska. waxaan joognaa maanta Liido Beach waxaan ku dalxiisaynaa magaalada Muqdisho oo nabadgelyo ah waad u jeedaan badda iyo dhalinyaradii si wanaagsan baan u dabaalanaynaa waxaan u nimid walaalaheen oo magaranaysa reer Muqdisho anoo ka Hargeysa aad iyo aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal Muqdisho waa nabad cidii lahayd Muqdisho nabad ma taas waa been magacaygu waa Nadiifo Maxamed Muxudiin Nadiifo Baarbe waxaan ahay reer Balcad badda darteed aan Balcad uga imaaday inaan dhalinyaradan iyo dadkan quruxda badan leh dalxiiskii damaashaadka aan kala qayb qaato magaaladan quruxda badan loo sida wanaagsan loo hagaajiyo oo maalin walba meel yar aan ka arkay inaan soo arko oon soo barto oon ku faano saas darteed aan Muqdisho u imid. Sanay Gacanay Madaxi waa ganacsade ka soo laabtay qurbaha waxa uu dareenkiisa la wadaagaya warbaahinta qaranka asaga oo qurba joogtana u diraya fariin muhiim ah. magaalooyinka aan aqaanay ama suuqa Bakaar ha noqoto ama wadadii Makal Mukarrama ha noqoto ama aagii taalooyinkii burburay oo darjirka Dahsoon SY wuxuu dhan runtii waxay u noqdeen meelo cusub aan hore u aqoon jirin inkastoo dhagxaantii taalooyinkii muuqday ay ka maqan yihiin laakiin hadda isbedelka iyo dhismaha iyo sida loo qurxiyay suuqa Bakaar aad u aqaanay xataa muddo aan ka ganacsan jiray waan aqoon kari waayo xaafadihii Baqaarada aan u socdo dhammaan runtii aqoon waaye runtii waxay tahay dalxiis iyo hawo fresh isbedel badan baad aan dhiigay ku yimid intaan ka imid South Africa halkan laakiin waxa yeelay waxaan cuni jiray chicken 6 bilood ku jiray fridge haddana waxaan helayaa cuntada fresh markaa la soo qalay waan ku faraxsanahay runtii dalxiisna way tahay cid walba aan ku boorinayaa in dalkeeda soo booqdaan soo dalxiisaan meesha ama Caraba ka aadi lahayn ama Nairobi ka aadi lahayn ama Kampala ka aadi lahayn ama Turkiga ka aadi lahayn inay yimaadaan Muqdisho iyo Baydhabo iyo meelaha la midka Garowe iyo dhulka la midka Hargeysa iyo ay dib ugu soo noqdaan Soomaaliya ay booqdaan si ay u ogaadaan dalkooda waxa uu yahay. wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareye waxa uu sheegay in tirokoob lagu sameeyay goobihii dalxiiska ee dalka uu lahaa kor burburkii dalka isla markaana dib u habeen lagu sameynayo waxa uu sidoo kale uu sheegay in siyaasadda dalxiiska dalka ay wasaaraddu dhameysay isla markaana loo gudbinayo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la tirakoobay goobaha dalxiiska ee dawladda Soomaaliyeed ay dalka ku lahayd sidoo kalena waxaa la tirakoobay goobaha dalxiiska ama dhismayaasha qadiimiga inta badan magaalooyinka ku yaala gaar ahaan kuwa xeebaha taariikh iyo noqon kara meel loo soo dalxiista dhismayaasha qadiimiga ee ku yaala magaalooyinka xeebaha laga soo bilaabay Saylac ilaa Kismaayo ama Ras Kamboni waxay mudan yihiin in sidooda loo ilaaliyo oo aan forma la bedelin qaab dhismoodkooda
aan la bedelin oo aan la burburin maadaama dagaaladu ay qaarkood burburiyeen waxaanu isku dayeynaa wixii dowladdu leedahayna in sidooda lagu soo celiyo wixii aan dowladdu lahayn ee dad shacabi leeyihiin aanu ku dhiirigelino ku gacan siino inay sidoodii kusoo celiyaan marka ugu horeyn waxaanu ilaalinay goobaha taariikhiga ah ayaanu ilaalinay ayaanu tira koobnay waana ilaalinaynaa sidoo kale waxaanu samaynay siyaasadda dalxiiska oo already martay guddiga golaha wasiirada ee arrimaha bulshada iyo arrimaha bulshada martay oo u socota hadda golaha wasiirada inay ansixiyaan waxaanuna samaynay structure fiican oo wasaarad ahaan iyo waax ahaan labadaba ay ugu shaqayn karto dalxiiska soomaaliya marka rajo badan ayaanu ka qabnaa in wakti dhow dalxiisku noqon doono qeyb weyn oo wax soo saarka soomaaliya iyo quruxda soomaaliya iyo imaanshaha adduunku halkaan imaanayo 27 bisha September ayaa loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee dalxiiska adduunka sanadii 2017 ayay Soomaaliya si rasmi ah xubin uga noqotay hay'adda dalxiiska adduunka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.